waxaa maanta magaalada Ceerigaabo lagu qabtay xuska maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha oo dunida laga xuso 10 Diseembar sanad kasta waxaana isla goobtaas lagu soo gabagabeeyay ololaha 16 casho ee ka dhanka ah tacadiyada loo geysto haweenka iyo dadka nugul waxaana munaasabadan soo qaban qaabisay wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada oo ay horkacayso isduwaha wasaaraddaasi Marwaan Cumar Jabaabul munaasabadan ayaa lagu soo bandhigay warbixino iyo hadallo diiradda saaraya muhiimadda ilaalinta xuquuqda aadanaha kor u qaadista wacyiga bulshada iyo ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah haweenka carruurta iyo dadka nugul مسؤولينتي كقيب قلعي حسكن أي أبو باقي بشدة يهيدها كلا دوان إن إلا بجباران دالة لقد دفاعي حقوق دادنها سلامر كان الحوشية تاجيرها وين كيدت كنا نقول وضميتنا وح مناسبة داسيس رسمي الله وصو حري يرولها لحيت منك عشرة لحيت منك عشرة هو استسمع إن لها الله تعدية كذا كأ تلك شريعسان واحد ضمن سوق وناي لحيت منك عشرة waxaa soo qabtay maalintii naaqada waxaa la soo qabtay maalintii diabetika waxaa la soo qabtay maalintii AIDS-ka waxaa la soo qabtay adigu unit marka waxaan leeyahay maanta waa xidhitaankii waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dadweynaha reer Ceergaabo inay ka faa'iidaystaan barnaamijyada soconaya ee ah ka hortagga tacaddiga intii ay timiday anagu magac baan ula baxnay slogan yar baan ula baxnay waxaan dhahnaa maamada istuuyaasha كل حفيز كي يشقدي يقبل يعلمي هواي يتعدي واحد بدنا يكبد الشيء وساعات الحبرشة أنا سيجارة مرشقنا ما أنت عارف وحيد شوقنا وحوي مانكي حسكي حقوق الإنسان كا ومالي وين وميلو بدوك اللي راح يصير وحكلوا عارف إنه شوقنا لحية تبكي تعدي ذا كذا كا حقوقها آدمها إذا ما أنت حرتان كذي أي تهاي وحوي مرة ما له وحلا يراه تعدي wuxuu meel walba tacadigu ka dhacaa wuxuu ka dhacayaa guryaheena wuxuu ka dhacayaa goobaha waxbarashada wuxuu ka dhacayaa meelaha sidan oo kale ay isugu nimaadno marka maalmahan oo kale waxa loo xusaa in la xasuusiyo aan la ilaawin in tacadiyadii ay jiraan maanta waxa weeyaan labada munaasabadood oo isa saaran ee ah xuska maalinka xuquuqul insaanka aadamaha iyo 16 cashe ee loo dhaqdhaqaaqo ololaha ka dhanka tacadiyada ka dhanka jinsiga oo maanta tiimku yahay cyberbullying waxa loo yaqaano ama tacadiyada lagu sameeyo electronic waxyaabaha aadka inta badan u faraha batay ay kamid yihiin blackmailing ama in qof lagu bully gareeyo lagu blackmail gareeyo sawirka haya muuqaal banka haya waxaan sameeyaa arrimahaas ay hablaha inta badan ay ku dhacaan oo ay kamid yihiin hadallada xanafta leh ee cayda leh ee xumada leh ee bulshadeena inta badan aadka loo isticmaalo oo aadka threat-ka ugu ah dhibaatada ugu ah nabadeena bulsho ahaaneed deegaan ahaaneed bay kamid yihiin waxyaabahaas oo dhami ay kamid yihiin labada munaasabadood way is saaran yihiin oo meel ay u kala baxayaan ma jirto labaduba waxay ku saabsan yihiin qofka bila aadanka ilaahay noolo uu abuuro ugu karaamada badan xuquuqdii uu siiyay ee ahayd inuu nabad iyo amni uu dhulka ku noolaado iyo sharaf in loo dhowro inaguna maadaama muslimiin hay tahay inta cidna ka baran mayne waynu naqaanaayeen ku dhaqano maanta waxaan ku joognaa xiritaanka 16 casho ee loo qoondeeyay in wacyigelin laga sameeyo tacadiyada ka dhanka ah jinsiga hadday noqoto dadka u nugul tacadiyada iyana waxaan maanta u joognaa 10 Diseembar oo ah maalinta xuquuqda aadanaha oo runtii ah maalin iyana loo qoondeeyay maanta waa laba xafladood oo isku dhacay waa maalinta xuquuqda aadamaha oo 10 Diseembar iyo soo xidhitaankii tacadiyada ku dhaca haweenka iyo dadka nugul oo 16 maalmood loo asteeyay si guud dad islaam ah nahay xuquuqda aynu kala leenahay ilaahay baa dashay oo cayimaanta meel badbaada haddana xeerar aynu samaysanay oo xuquuqdeennii kala sheegaya diinteenniina ka hor imanay ayaa iyaguna jiro oo markaa bulshada reer Ceerigaabo
waxaan ka codsanaynaa qof kastaba meeshu joogo inuu qof kasta xuquuqdiisa ilaaliyo xaqiisa ilaaliyo runtii maalintan xuquuqul insaan waa maalintii hore aynu furay 15kii cashe ee lagu maqnaa shaqada ama Allah halkaa markay joogto wax badan baa runtii qabsoomay intii aad qabateen sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay ardayda social work runtii ay jaamacaduhu bilaabeen fakalka tacaadi badan lama arag محمد محمود محمد ورباهين تقرن كسومالي magaalada Ceeri Gaabo